dhageystayaal waxaa imika qadka taleefanka si toos ah ugu jira xildhibaan professor cabdilaahi yuusuf cali oo kamid ah baarlamaanka Soomaaliya dhawaan la soo magacaabay waxaana ka wareysanaynaa kulanka maanta ay baarlamaanka Soomaaliyeed isugu yimaadeen kaasoo looga hadlayay qaar kamid ah shuruudaha lagu soo xulanayo ama la hordhigayo madaxweynaha Soomaaliya ee la dooranayo toddobaadka inagu soo aadan taas oo ah arin ay in badan ka dhursugayeen dadweynaha Soomaaliyeed iyo musharaxiinta afartameeyaha ah ee imika ku wada sugan magaalada Muqdisho ugu horeyn xildhibaan Cabdilaahi Yuusuf ku soo dhawow shabakada warbaahinta ee kismayo24.com marka xiga waxaad nooga warantaa maanta kulan baad yeelateen kulankiinaas maanta maxaa looga hadlay qodobada kulanka looga hadlay kulanku wuxuu ahaa kalfadhigii koowaad kulankii lixaad kalfadhiga koowaad ee baarlamaanka qodobada looga hadlayna waxaa ugu muhiimsanaa laba qodob oo kala ahayd warbixinta guddiga doorashada qabanqaabada doorashada madaxweynaha oo iyagana dhawaan la doortay iyo qodobka labaad ee ugu muhiimsana ahaa xulidda guddi ka kala bixiya xubnaha xildhibaanada ee ka dhiman weli tirada baarlamaanka labada qodob ee ugu muhiimsanayd waxaase jiray oo kaleeto qodobo kale oo si gaara loo soo qaaday oo kamid ahayd taasi uu jirayay guddoonka baarlamaanku oo ku hadlaya magaca xildhibaanada Soomaaliyeed ee loo dirayay shacabka reer Itoobiya kadib markii dowladeed wasaaradii hore ee la jinaay ugu muhiimsan qodobada lagu soo qaaday kuwa kale waa usoo laaban doonaa marka hore ku horeyno qodobkan ka hadlaya warbixinta ay soo jeediyeen guddiga doorashada madaxweynaha maxay guddiga soo bandhigeen ugu horeyn kadibna baarlamaanka muxuu arintaas uga dooday guddigu waxay si guud uga warbixiyeen waxqabadkoodii iyo inta ay hadda tallaabo qaadeen muddadii ay shaqeynayeen oo waxaa ugu muhiimsanaa inay guddiga hoosaadyo isu qaybiyeen iyadoo guddiga ku koobayahay 15 xubnood iyaga waxay ku qaybiyeen 3 guddi ah guddiga qabashada aragtida guddiga dhaqaalaha iyo guddiga protocolka marka sidaasay isu qaybiyeen ilaa hadda waxyaabaha ay soo saareen oo ay ku raacsanaayeen waxaa kamid ah muddada la qabanayo doorashada madaxweynaha Soomaaliya si aadan oo ku beegan 10 bisha insha Allah taala waxyaabaha kale ee iyaguna ay isku khilaafsaneen ama ay kala uga baahneen ee jaamiyada waxaa kamid ahaa in xildhibaanadu ay xaq u leeyihiin inay soo jeediyaan ama tala soo sharaxaan murashaxiinta ay arkaan inay hanan karaan xilka madaxweynenimada laakiin qodobadaas waxaa ku dhex jiray qodobo hoosaadyo xoogaa aad moodo inay soo dhaliyeen oo lagu dheeraaday oo ay kamid tahay qodobka oranaya murashax kastaaba waa inuu haystaa taageerada 20 kamid a xildhibaanada ilaa shacabka si uu u buuxiyo shuruudda registration taasa waxay ahayd mid ay tala badan uga baahnaayeen oo ay kusoo celiyeen guddoonka iyo xubnaha baarlamaanka waxaa kaloo iyana dood badan dhalisay oo waxyaabihii horsuntooda kasoo kamid ahaa lacagta registration sida laga qaadayo murashaxiinta doonaysa inay xilkaas u taagaan madaxweynenimada marka warbixintooda way dheeray laakiin inaasaad mooday inay doodaba inta badan dhaliyeen intikana waa lagu soo aqoonsanaa waa gartay marka arintan baarlamaanka lasoo hordhigay ee ah xildhibaanada musharaxa soo sharaxay in laga rabo inuu 20 xildhibaan cod ka haysto iyo tan lacagtaba 10,000 baarlamaanka kulankiina maanta maxaa laga yiri markay soo gudbiyeen guddiga doorashada arinta maxaa laga ogolaaday waxaa la geliyay dood dheer oo qaadatay taqriiban 2 saacadood ama wax ka badan siyaabo kala duwan baa wax looga sheegay arrintaas markii dambena sharaxaad dheer kadib iyo guddoonka baarlamaanka oo iyaguna sharaxa qaybta ahaa waxaa la isla gartay qodobka oranaya 20 xildhibaano ay taageero ka haysto qofka murashaxahay inuu yahay qodob dastuuri ah oo aan meesha laga saari jirin oo ku xiran dastuurka kumeel gaarka
ما أحد ودكتور waxaa caddaatay inaan la bedeli karin haddii xataa la bedelo oo dood la geliyo macnaheedu wuxuu noqon lahaa in 6 bilood kadib lagu dhaqmo taas waa la jarqaadi karin doorashada madaxweynaha oo ka dhiman tahay wax taqriiban 8 maalmooda marka qodobka intiisa loo tixgeliyo laakiin tafsiir la geliyo ayaa laisku waafaqay oo markii dambeysay cod loo qaaday waxaa la isku raacay in qodobkii laga saarsan yahay laakiin aanu xildhibaanku ka qaybnayn oo keliya inuu hal murashax wax u saxiixo hadda darteeda inuu u saxiixi karo 3 murashax inuu xildhibaankaas u saxiixi karo oo soo jeedin karo ama soo darbeed garan karo ayaa markii dambe laisku waafaqay labo waxay ahayd ajende oo isgarab socday marka dadka xildhibaanada la dhageystay oo kale ay qodobka intiisa loo daayay sida uu u muuqdo masni ahaan oo ah in xildhibaan kasta uu hal cod leeyahay hal murashaxna uu ka saxiixi karo oo soo jeedin karo iyo in qodobka laga dhigo maadaama una tiro xadideynin in tirada lagu xageeyo ilaa iyo 3 murashax inuu u saxiixi karo marka cod la qaaday waxaa si aqlabiyada lagu aasiyey in murashax kastaaba xildhibaan kastaaba uu u saxiixi karo oo uu taageero siin karo 3 murashax taasaa marka dambe lagu daayay qodobkaas arrinta lacagta lafteeda soo dheer bay ahayd dad badan baa qabay inay lacagtu badan tahay guddoomiyaha baarlamaanka kamid ahaa ku dhisa haddaan xusuusto wuxuu yidhi marka midaanka baarlamaanka shardigu wuxuu ahaa in 3,000 la bixiyo marka ilaa la tijaaro oo 6,000 ama 5,000 laga dhiga mooyaane lacagta hadday badan tahay xildhibaano badan baa qabay inay caadi tahay markii dambe ayaana cod loo qaaday waxaa la isla gartay in lacagta 10,000 ay tahay lacag u qalanta tirada la doonayo registrationkeeda waxaa dood garab socotay ahay lacagta yaa isticmaalayo iyo sidee transparency ahaan looga warqabayaa meesha ay gashay marka dambe guddoomiyaha baarlamaanka wuxuu ballan qaaday inay istaagelin iyo faahfaahin arrintaas ku saabsan wixii la qabtay iyo sidii ay ku bixeen oo dhan lasoo bandhigi doono lacagtana ahamiyadeeda ay tahay in lagu socodsiiyo arrintan qarashka badan ee doorashada madaxweynaha oo aan ayadoo hadda haysanin dadka gaar oo loogu talagalay karana marka sidaas labada qodobkeeda lagu degdegay professor cabdilaahi yuusuf xildhibaane soo marka loo fiiriyo in xildhibaan kasta la siiyo inuu 3 musharax soo gudbiyo codkiisa ku taageero lama dhihi karo waxay sahli kartaa in xildhibaan kastaba uu 3 musharax codkiisa siiyo in xildhibaanada musharaxiintu ay tiradoodu badato meeshii ay ahaan lahayd in ay musharaxiinta codadkoodu ay kooban yihiin tiradoodu walahaasi wuxuu ka mid ahaa doodii jirtay waxyaabo badan baa arrintaas laga soo jeediyey laakiin maadaama qodobka qodob dastuuri ay yahay waxaa muuqatay in sida loo tafsiiro ama interpretation looga bixiyo ay waxa ku ekaanayaan dadku waxaad moodaysa inay eeg ka cararayaan oo murashaxiintu ay badan yihiin kuwo badan oon taageero badan haysanin inay jiraan waa la ogyahay haddana dee saxiix loo hoos ordaya xildhibaanada marka xildhibaanada waxaad moodaysa inay security ahaan xataa qaybo ka hadashay dhaheen hadii aan lagu diidmo isaga waxaa laga yaabaa inay tahdiid aliyaan walaac badan kadib waa dhab in aanu ahayn qodobkii sidii loo badnaa markii dooda la jeedinayay laakiin markii codka la qaaday dooda kadib waxaa la isla gartay in ay laba kala tahay in murashaxa aad u odayso adigu kula ximan iyo inaad kala ahaan kusoo jeediso qofkan inuu murashax noqon karo marka saxiixan baarlamaanka lagu soo saxiixayo oo uu soo gudbinayo murashaxu isagoo ka haysta taageero 20 xildhibaan macnaheedu maaha inay 20 xildhibaan codkeedii soo bixiyeen hadhow iyaga xor ah markay qolka galaan cid ay u odeynayaan marka waxaa la yidhi waa un arrin ay tahay conditionally in lagu daro maadaama qodob dastuuri ay yahay registration commissionka lagu daro sidaasaa markii dambe la isku waafaqay laakiin walaaca siyaasa ka muuqdaa ugu muuqday markaan ka dhageystay waxaad ii sheegtaa oo aan rabaa inaan dhinaca kale wax kaa weydiiyo kulanka maanta ee looga hadlayay arrintaasi ay soo gudbiyeen guddiga doorashada madaxweynaha xildhibaanada ka doodayeen tira ahaan imisaa fadhiday fadhiga baarlamaanka ee maanta waxaa fadhiyay 207 xildhibaan sida ay nagu wargeliyeen kulanka baarlamaanka waa markii dooda la bilaabayay intaa way ka yarayd oo aan
markii furmayay waxaan xasuustaa in 165 gaar register gareysay laakiin markii dib loo hubiyey oo hadda la qaaday waxaa guddoonka baarlamaanka sheegay in 207 xildhibaan ay codka qaab sidee ah ayaa loo qaaday ma gacantaag buu ahaa oo loo qaaday hal mar gacantaag buu ahaa inta caadiga ana mar walba waxaa la siinaya aqlabiyadda laakiin waa la kala qoray codadka saddexda noocba qolada taageertay qolada diiday iyo kuwa ku aamusay saddexdaba waa la qorayay marka labada codba aqlabiyad gacantaag waa lagu warar inaga soo gaaraya magaalada muqdisho gaar ahaan kulankii aad maanta yeelateen waxay sheegayaan in qaar ka mid ah qabqablayaashii dagaalka dagaal ogayaasha loo yaqaanay ay soo xaadireen kulanka maanta muran yarna uu ka dhashay arintoodii maxaa xalo laga gaaray ilaa imika iyadoo aan ognaa hore in guddi loo saaray haddaan halkaas soo saxo horta hadda kahor guddi looma saarin maanta ayunbaa guddiga la qabtay wuxuu ahaa qodobkii dambeeyey ay baarlamaanka maanta kaga hadleen ama guud ahaan fadhigii maantay nimankaas xildhibaanada hore ahaa badankood oo guddigii farsamadu ay ku qabsadeen inaanay u qalmin inay xildhibaano noqdaan arrintaas waxay arrin ka taagnayd ma huba inay wada joogeen laakiin qayb ayaga kamida way joogeen fadhiga kamay codayn karin oo lama dhaarinin xildhibaano lama aqoonsanin weli laakiin waxaad la socotaan in guddigiisa xoris uu diiday qayb kamidana beelahoodii aysan soo bedelin qaybaha hataa kuwa lasoo bedelayna iyagoon dadkii lagu soo bedelay la dhaarinin haddana ay maxkamada sare ay kala yimaadeen waraaqa ah inaanay dembi lahayn oo ay xildhibaan noqon karaan murankaas qaanuuniga ah oo kasoo bilaabanaya guddigii farsamada iyo international community siday waxay arkayeen ayunba qaybta ahayd marka way joogeen qayba ayaa kamida kolley intaan hubo qayb kamidii way joogeen laakiin may hodeynin arrinteedana waxaa loo saaray guddi lagu magacaabay guddi kasoo kala bixiya sida laga yeelayo xubnahaas iyadoo keliya maaha waxaa jira corruption oo laysku haysto oo ay guddiga farsamada go-aanka gaari waayeen oo iyada ku doodo maanta loo siiyey guddiga inay kasoo kala bixiyaan marka sidaas ayaa lagu xaliyey laakiin waxaan ku xaqiijinaya inaanay jirin wax buuqa oo ka dhashay waxay jihaysteen kaaranay kusoo galaan howlka laakiin ma aysan lahayn wax xuquuqa oo ay ku hodeeyaan xildhibaanada kale ay kala yihiin professor cabdilaahi xildhibaane waxaad ka mid tahay aqoonyahanada soomaaliyeed ee waqtigan nasiibka u yeeshay xilligan kala guurka in ay kusoo biiraan baarlamanka soomaaliya xilliga ku-meel gaarada looga baxayo ee rasmiga ah marka aad fiiriso saadaashaada adigoo oo eegaya aqoontaada iyo waqtiga badan aad usoo joogtay dunida maxaad ku cabiri kartaa xilligan lagu jiro iyo siyaasadda ka karaysa magaalada muqdisho markaan kaa cabirayo waan ra'yigeyga waxaan ixtiraamayaa ra'yiga iga soo jeedi karaa dhinaca kale keegi karta waxaan ku macnayn karaa haddaan soo koobo in uu jiro bisayl siyaasadeed iyo bisayl amni iyo bisayl ku saabsan wada noolaanshaha iyo is-ictiraafka soomaalida dhexdeeda inuu waqtigii ugu horreysay ama si ka badan sidii hore sidii uu burburka jiray aan dareemayo waxaa ii muuqata in aanu jirin cid ra'yigooda isku dayata inay ku khasabto dadka kale haddaan suaalkaa ka taqaada nimankii hubka badan xamarku haysan jiray ee hadeer iyada labada bilood ku badan la ku daba wareegsinayo oo qaybteeda ay soo xaadireen kulankii baarlamaanka loo diidan yahay weli in loo aqoonsado xildhibaan inay yihiin waxsaas caadi ah si ixtiraam leh ay la dhaqmayaan dadka waxda doona ayaa lagu oranayaa dadka kudooda way ixtiraamayaan ayaga sidii uma gefeeyaan loolanka jira ee siyaasadeeda murashaxiinta waa kala aragti duwan waxaad moodaa in laftiisa ixtiraam badan leeyahay waxaa muuqata dood la isdhegeysanayo la is ixtiraamayo si sharaf lana loo tarsamayo waa ii muuqata marka ayay jiilaa jirta markii ugu horreysay in ka badan 20 iyo siyaabo sano aan muqdisho ka jirin anigu aan iman jiray waana ka warhayay inkastoo aanan degahay magaalada muqdisho aan soo caadiyay intii burburku dhacay
laakiin xabawaal baan u ahay horey jiray kana goobjoog baan ka ahay waxaan ku macnayn karaa inuu digri aad u fara badan u dhexeeyo ama darsi aad u badan u dhexayso runtiina aad baan ugu rasa weynahay aniga iyo intiirada iyo lagabkaba in soomaalidu ay markan u bislaatay inay ka guurto dhaqanxumadii hore iyo samireedii oo ay doorato dad halkasa oo samaka bixiyada kaasina waxa uu ahaa Professor Cabdilaahi Yuusuf Cali oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo qadka telefoonka ugu waramayay shabakada warbaahinta Kismaayo 24 isagoo aan ku xog wareysanaynay oo kulanka baarlamaanka ay maanta ka yeesheen waxa laga yeelayo shuruudaha la hordhigayo musharaxiinta u taagan xilka madaxweynenimada Soomaaliya. aad baad u mahadsan tahay xildhibaan Professor Cabdilaahi Yuusuf Cali.